بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دhowaada walaalaha qaaliga walaalihii hore noogu xirnaa iyo walaalaha cusub ee hadda gadaal nooga soo biiray. waxaan idin leeyahay insha Allah waa janal aad ka faa'iido doontiin faa'iidooyinka laga dhaxlay dikriga ahlu dikriga faa'iidooyinka ka arkeen iyo qisaskoodii ayaan kusoo gudbinaa insha Allah. kamid noqo adigana wixii fikirkaaga iyo ra'yigaaga ah waad noogu reebi doontaa halka hoose insha Allah. intaan ugu gudgelin mowduuceena aan ku wada salino nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. الحمد لله دائما وابدا. الحمد لله على نعمة العافية. الحمد لله على نعمه تتم الصالحات. الحمد لله على نعمة الإسلام. إلهي يا مهد إسكال نغرق إسلام عافي ما نسيي. الحمد لله إلهي يا مهد إسكال نمعوين فربضا وعلى تركرين نوغل ديستي. إنما أنت وحا أكسابسين هاي سورة البقرة فائدوين كإيلاذ هاي وناقل لغا أركي محالة دحلا فسورة البقرة مركي لأخرستو. بسم الله. سورة البقرة قفك أخرستو نولشيسا إي عافمات كيسا إيو بيت كيسا إي إهل كيسا أيو إلهي أحفظيا شياطين تأياك ديراد أو كعرر قرية لغا أخريا. سورة البقرة سحرك إي عينت إي حسد كانوا أمسو دوادان قفك أخريو. سورة البقرة إي قرية لغو أخريو waxay ku shafeeca qaadaysaa maalinta qiyaamo ajar iyo sawaab fara badan ayaa laga helaa. waxay ka dheereynaysaa macaasida iyo dunuubta. waxay ku xaqiijinaysaa umniyaadkaaga iyo hadafyadaada aad leedahay. waxay kaloo ka qayb qaadataa in ducadaada la aqbalo. waxay kaloo ka qaadataa in ilaahay kaafi kugu noqdo oo arrimahaaga dhan ilaahay uu kaafi kaaga noqdo. waxay kale tahay sababta lagu galo dukhul jannada in lagu galo sababtoo ah aayatul kursi markii la akhristo salaad kasta duburkeeda ama gadaasheeda rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu noo sheegay in ay qofkaasi u dhaxayso iyo jannada galisteeda. qofka iyo jannada inuu galo kaliya waxa u dhaxayso dhimashada kaliya. من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رسول صلى الله عليه وسلم قال يا سورة البقرة قال رسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البضلة. هذا يهي أخرست سورة البقرة سببتو أخرست شديدة وحالها لا بركة كتجديدنا وحسر الندامه. waxa uu leeyahay qofka badalada iyo sidaan inay dhibaateeyaan qofka akhristo suuratul baqara. marka suuratul baqara waa xijaab weyn oo aan heysano inaan ka faa'iideysano aad iyo aad ay muhiim noogu tahay. kana waxa uu leeyahay hal maalin gudaheeda marka aad mar akhriso suuratul baqara ilaahay wuxuu ka faa'iideeyaa kurbada ku haysato. mar labaad marka ku celiso ilaahay wuxuu oranayaa ka sii daaya sixirka haysto. hadaad akhriso mar saddexaad ilaahay wuxuu oranayaa waxaa jiray duco hore uu weydiistay adoonkeyga waana siinayaa ayuu Allah leeyahay. hadaad mar afraad akhriso ilaahay wuxuu malaa'ikta ku oranayaa ka fayda adoonkeyga kurbadiisa. hadaad akhriso mar kale ilaahay wuxuu oranayaa waxaan u qoray adoonkeyga in risiqa uu cariiri ka galo muddadaas haddase u ballaariya risiqiisa. سورة البقرة وهدية إلهي كوغو دياري أي كو إلالسو أيو إلهي كوغو دياري سورة البقرة كستود آخر السنة إلهي وحكاغ ديغيان ولشادة إفتين بركو إيو برواقو. قفك حنونسان هدو آخرستو إلهي وحوكو سينا يا عافمات سورة البقرة. qof kasta oo xoogiisa iyo hibadiisa iyo caqligiisa ay ka qarsoon tahay ha joogtay suuratul baqara wuu arki doonaa natiijadeeda iyo faa'iidada uu ka dhaxlo. suuratul baqara waxa ku jirto aayadan wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. sidee buu ilaahay kaaga aqbali weynayaa ducadaada? jawaabtaadu waa maya. hadaad akhrisato suuratul baqara oo aad Allah barido waxaad heli doontaa insha Allah jawaabtaada oo degdega. waxaa ku jirto aayada ugu weyn quraanka Allahu la ilaaha illa huwa al-hayyul qayyum. markaas fadliga iyo barakada iyo wanaaga suuratul baqara ay leedahay ma aha mid la soo koobi karo. hadaba kamid dhig maalintaada jadwalkaaga maalinlaha ku darso suuratul baqara. hadaad akhrin karto baal xisib jus maqro laba jus hadiyo inaad suurada dhameysaba waad heli kartaa. marka
aayadaha suuratul baqara qayb ka mid ah maalintaada waynay ku jirtaa. haddaba aan u gudagalno qisaskeennii iyo maanta. suuratul baqara ahlu dikriga qisaska ay ka arkeen. gabadhani waxa ay leedahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan ahaa gabar dhalinyaro ah, reer leh, reerkeeda jecel inuu dhisnaado, balse khilaaf iyo umuuro fara badan oo culeysaad ay haysteen. waxay tiri ani iyo zoojkayga wax xumaan iyo dagaal nagama dhexeeyo, balse saas ay tahay mar walbo waa isku dhaceynaa. arin hadduu sheego aniga waa ku khilaafayaa, aniga oo ka xun haddana aniga haddaan arin sheego waxay tiri wuu igu khilaafayaa asaga. marka waxay tiri wax xumaan nagama dhexeyso, dad wanaagsan ayaan dhahday oo isfahansan haddana iskhilaafsan. waxay tiri markii dambeento waxaan bilaabay inaan akhristo suuratul baqara. alxamdulilah waxaan lahay cajis fara badan, cajiskii ilaahay ka dulqaaday, waxaan noqday qof firfircoon. waxaan u sheegay dhahday zoojkayga bal inuu asagana akhristo suuratul baqara. alxamdulilah waxay tiri waaba kaanama anagooba hurdo kasoo kacnay oo qaflad aan ku jirnay, ilaahay naga soo saaray ayay leedahay reerkeena. alxamdulilah maslaxo iyo wanaag, kheyr, barwaaqo, baraaro ayaan ku sugannahay dhahda. aad ayaan uga faa'iideysanay suuratul. qisadeena labaadna waxaa ka hadlaysa gabadhan. waxa ay leedahay suuratul baqara akhrinteeda waxaan wadaa muddo 2 sano ah hadda. waxaanan u akhriyaa ayay dhahday qaabkii aan awoodo, 10 bog, 20 bog, suuradda haafkeeda. marmar waa dhameeyaa suuradda. muhiim waxaa ii ahay dhahday in aan maalin walbeenta suuratul baqara aan akhriyo. salaad walbo gadaasheeda ayaan akhriyaa ayay dhahday. markaan salaad ka baxabo qayb ka mid oo aan awoodo ayaan ka akhriyaa ayay dhahday suuratul baqara. maxaan ka arkay waa marka muhiimadda ay kaga hadlayso waxay tahay alxamdulilah. waxay tiri suuratul baqara waxa ay badashay nolosheyda oo dhan. waxyaabo badan ayay ka badashay, waxyaabo aan suurtagal ahayn oon islahaa waxaan isbedelka ma dhici karo ayay badashay ayay dhahday. fadligaas waxaan ku helay akhrinta suuratul baqara. fadligaas waxaan ku helay ilaahay dartiisa iyo akhrinta suuratul baqara. waxay tiri waxaan ka helay oon ka dareemay raaxo iyo deganaan nafsi ah, sidii hore aan ahay si ka bedelan. awal waxaan ahay dhahday qof waswaas badan, walwal badan, waxay tiri oo culeys fara badan uu saaran yahay. laakiin waxaan noqday ayay dhahday inay wax weyn iga dageen ayaan dareemay ayay dhahday. waxay tiri maalinka hadda ma awoodo inaan ka tago sababtoo ah faa'iidooyinka farada badan oon ka arkay liajligeeda. ilaahay iyo fadliga oo dhan iska leh. waxay tiri waan ku caafimaaday, cudurro badan ayaan uga caafimaaday oo ka mid tahay il, sixir iyo xasad. alxamdulilah waxay tiri waxaan idinkugu nasteexaynayaa inaad akhrisataan maalin kasteento. waxay tiri sababtoo ah baqro oo dhan waa daawo oo waa shifaa ayay leedahay. ka tegideeda waa xasro iyo nadaamo, in la qaatana waxaa laga helaa oo maalin walba la akhriyana barako. kalena waxaa ka sheekeynayso gabar. waxa ay leedahay walaasheyda aad iyo aad ayay waxa oola xanuunsaneed sixir. waliba waxay tiri waxaa laga sixray xagga guurka, waa lasoo doonan jiray, nin walba oo soo doontana way diidi jirtay ayay dhahday. alxamdulilah marka dambeento waxaan kula talinay inay akhriso suuratul baqara, ruqyo isku akhriso, faatixada ee badiso, saliga nabiga sallallahu calayhi wasallam ee aad iyo aad u akhriso. alxamdulilah muddo yar kamaba soo wareegin ilaa guurkeeda wuu dhacay oo alxamdulilah zooj ayaa guursaday. waxaa ka sheekeynayso gabar. waxa ay leedahay qisadan waa qiso xaqiiqa oo dhacday sanado ka hor. waxay tiri waxaa jirtay gabar guursatay. markii ay guursatay oo guri gashay waxayba weysayba hal mar dhagaheedii ayaa la geeyey. dhakhaatiirtiina wax weyn way kasoo sheegi waayeen oo micnaha ay u dhaga beeshay iyo xaaladeeda waxbay ka fahmi waayeen. culimada qof ka mid ayaa wuxuu kula taliyay ayay dhahday inay akhriso suuratul baqara ay akhriso. alxamdulilah markii ay badisay akhrinta suuratul baqara ilaahay wuxuu u soo celiyay dhagaheedii ayuu ilaahay u soo celiyay. muddo bil gudaheedaba dhagihii usoo noqdeenba. subxaanallah. kale gabadhan waxa ay leedahay ilaahay yaa mahad iska lehe. waxay tiri meequu ilaahay iigu gargaaray akhrinta suuratul baqara. waxay tiri ilaahay wuu igu caafiyey oo wuxuu iiga caafiyey madaxa dhinac ayaa xanuuni jiray oo uga caafimaaday. dowrada bisha ama caadada oo iimaanaysa bil walbeento
waan ku xanuunsan jiray alxamdulilah markaan isku tufo oo caloosheeda ku tufo waxay tiri dhiig ayaa si sahlan iga soo bixi jiray oo waan uga caafimaaday waxay kale tiri suuratul baqara waxay badashay yacni qadarkeygii iyo xaaladihii oo dhan ayay badashay dhinaca fiican ayay u badashay waxay tiri alxamdulilah waxa kaloo ku arkay ee dhahday oo aan ka faa'iido suuratul baqara aniga oo xaamile ah ayaa waxa igu dhacay dhahday xanuun oo naxdin fara badan murug walwal ayaan dareemay ee dhahday alxamdulilah markii aan joogtay salaatul leyl inaan suuratul baqara akhriyo kurbadii farada badneed way iga degtay ayay dhahday ilaah baan ku dhaartay waxay leedahay yacni caafimaadka aan dareemay ma aha mid la sifeyn karo waxay kaloo tiri huduu deganaan waxaan dareemay ayay dhahday aan ka helay akhrinta suuratul baqara awalka horeenta waxa ahaa xitaa waxaan ku sigtay ayay dhahday xitaa marmarka qaar inaan isdilo walwalka iyo culayska aan dareemayay stresska iyo haysta aawis balse alxamdulilah suuratul baqara ayaan uga caafimaaday waxay tiri qof walbana iskama akhrin karee waa qofku ilaahay waafajiyay inuu akhristo suuratul baqara unba akhrin karo inuu khatimana qofku ilaahay waafajiyay una akhrisan karo oo khatimi kara ayay dhahday balse ku dadaala oo akhriya maalin walbeentana inaad raatib ka dhigataan isku daya insha Allah qaaliga qisaskeeni halka ayaan kusoo gabagabeyneynaa maanta qisaska suuratul baqara laga arkay iyo faa'iidooyinka laga dhaxlay suuratul baqara laga sheekeyna hadii la dhaho ma aha mid la soo koobi karo ka sheekeynteeda isbedelada ee dad badan ku sameysay insha Allah aad ban waqti badan idinku soo galin doonaa oo idinku dhiirigelin doonaa nafteedana insha Allah uu dhiirigelin doonaa biidni raxmaan balanteenu waa inaan gacanta midig ku qabsana akhrinta suuratul baqara iyo quraanka oo dhan waa daawo waa barako waa wanaag waa ajir waa shafaaco aakhiro aad ku heli doonto ilaahay idankiisa insha Allah aan ku dadaalno akhrinta quraanka iyo ku dhaqankiisa iyo jeclaanshada quraanka إلهي أهل القرآن أهل خير أهل بركة الله نغريغو أهل الجنة الله نغريغو أو جنة الفردوس الأعلى الله نوكلمي ورسولك عيسى الله نغريغو بإن الرحمن مرادكين يا مرادك مسلمين الله سهلو إلهي عمري عافمات بركة عبادة صوبا الله نصيو والدين تين إلهي ونحرستو الله وغرغارو سيدي أنا ويرين ونحرستين أو بارن مفلين ونسو كوريان إلهي ونحرست أدوني آخر انتي لمت جنة الفردوس الأعلى انتي نولنا حفظي حرسي إلهي لها قليو دمانتين نبي إلهي وحان ويديساني ناقفكين يقيردين إنو رحمانك كل منين توبة نصوحة قبل الموت إلهي نصيو إلهي وحان ويديساني شهادة عربكين قصو إلهي وحان ويديسانينا دنوبتين تيهور يتي دنب مديري مدوين مدا أغناي مدا أغين إلهي نو دنب دافو إلهي وحان ويديسانينا إنو حقا نقصو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك استودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه إلهي سبحانه وتعالى دمانتين هنا وذا حفظيو دمانتين مرادكين ومعسلين الله نصيو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله.